gabadha Amaal ee aragga ka naafada ayaa wariyihii wareysanayay weydiisay araggayga ama wajigaygu qaabkee baan u ekahay qof nooceeya baan ahay waa iyada isma arkayso si wanaagsan oo qurux badan oo gabadhnimada ugu sharaxay wajigeeda iyo qaabka uu egtahay inaga waxa laga yaabaa iyagoo ilaahay nimcooyin fara badan ina siiyay oo ilaahay ku qurxiyay in haddana isa silugsan tahay oo la dhacsanayso ilaahay ku abuuray qurux kala doonayso cajiib weeyaan ilaahayna wuxuu yiri لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بلا آدنك أما ضدك وحنو أبورني قابكي أبونا كسناين وأبور لحين وحن لقيا بأبورك إلهي قرح البضن إلهي نوشيغي إن إنه سلوغنو إنه قادم وإنه إلهي سنو إنه أبورين نحن وإن فالحنهي إنه آد قرح بضن وإنه دونو قرحه بلا آدن سميي أما إنه شركي إنه وحكا بدلو وإنه وحكا لا يسمار إنه شركي إنه دليا كبردا أرقا كنا فضا وحن لي ولا شيء قوليسو هرو صعو quruxda inta lagu sheegayna aad baad uga sii qurux badantay waliba